الله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد نحن كسو جرنا تفسير سورة النساء آيات كنتم يا صدح أي درسي مكبل عبانيا الله سبحانه وتعالى وحو نغسو ورمي inoogu dambeysay qoladii ahlu kitaabka ahaa yahuudda ahaa iyo qarintii ay ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa qariyeen ee nebiga dafireen iyo ceebahoodii iyo xumaantii ay u qasti jireen oo ku durayeen nebiga iyo diinta wuxuu kaloo alle subxaanahu wa tacaala inooga warramay inay dhaaftay arrintoodu intaaba inay dhaaftay oo ay gaadhsiisan tahay gaaladii mushrikiinta ahaa ee sanamiyada caabudayey inay diintooda fadilaan oo yidhahdaan iyagaa ka fiican nebi maxamed oo tawxiidkii difaacaya oo iimaankii iyo diintii ka warramaya iyo tawxiidkii marka waxyaabaha ku kalifayna alle subxana wa tacaala waa ka warramay ulaa'ika aladiina lacanahum allahu waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiira waa qolo lacnad ilaahay ku dhacday oo naxariista alle laga fogeeyey qof ilaahay lacnadiisu ay ku dhacdayna cid u hiilisa heli maysa alle subxana wa tacaala uu ka sii warramaya marka xaaladahoodii wuxuu leeyahay am lahum ma waxaa u sugnaaday nasiibun qayb min almulki mulkiga ka mid ah miyaa u sugnaatay fa idan goortaas laa yu'tuuna ma siinayaan annaasa dadka naqiiran laftimireed jeexeed meesha ay ka daloosho ka kala dilaacsan tahay wax intaa buuxiya ma siinayaan yani lafti mireed jeexeed wuxuu qaado ma bixinayaan alle subxana wa tacala wuxuu ka warramayaa dee mulkiga miyaa la siiyey waa istifhaam inkaariya maya mulkiga ilaahay baa le subxaana wa tacaala waxba kuma laha alle wuxuu leeyahay hadday mulkiga yeelan lahaayeen ama wax ku lahaan lahaayeen bakhaylnimaa qaadi lahaydoo lafti mireed jeexeed meeshay ka daloosho daloolkeed may bixiyeen dalool laftimireed wax buuxiya may bixiyeen buu leeyahay alle subxaana wa tacaala aayaddu waxay la mid tahay qowluhu tacaala low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuura naxariista rabbi haddaad hayn lahaydeen waxaa idinku dhici lahaa khashyata alinfaaq wax bixinta inaad ka baqdaan oo dadka aydan waxba siinin waxba bixin baa idinku dhici lahayd insaanku waa qatuur bakhaylnima asal uu yahay alle subxana wa tacaala wuxuu kaloo ka warramay am yaxsuduuna annaas am mise waxa ay waxaa u samaynayaan ee diinta uga hor imanayaan ma waxa weeyaan am yaxsuduuna annaasa dadka miyay xaasidayaan watii hore waxay ahayd hadday mulkiga hayaan waxba ma bixiyeen khaasatan nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxa ma siiyeen yacni meesha ay colaadoodu gaadhsiintaysay u fog tahay lafti mireed jeexeed daloolkeed wax buuxiyaa lafti mireed daloolkeed wax buuxiya nebi maxamed may siiyeen iyo dadka oo dhanba colaadu meel fog bay maraysaa am yaxsuduuna annaasa mise dadkay xaasidayaan oo wax dadka la sheegayaana waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam calaa maa wixii aataahum allaahu alle uu siiyey ee min fadlihi fadligiisa ah oo nebinimada ah miyay ku xaasidayaan faqad xaqiiqee aataynaa waa siinay aala ibraahiima nebi ibraahim aalkiisii alkitaaba kitaab baanu siinay walxikmata xikmaddii baanu siinay oo sunankii ambiyada ah wa aataynaahum waxaanu siinay mulkan mulki cadiiman weyn oo dee mulkigii daawuud iyo mulkigii sulaymaan iyo mulkina waa siinay buu leeyahy alle subxana wa tacaala mulkan cadiiman mulki weyn oo nebinimada ah ayaanu siinay fa minhum waxaa ka mida ahlu kitaabkii man qaar baa ka mida aamana rumeeyey bihi ciddaa mulkiga iyo nebinimada la siiyey ee bani israa'iil ah ee aala ibraahiim ah wa minhum waxaa ka mida man qaar baa ka mida sadda ka hor yimi canhu xaggiisa oo dadka ka leexiyey oo diintaas
nabiyadii la yimaadeen iyo aala ibraahim dafiray oo jibti iyo sixir iyo wax la mid ah ku sheegay wakafaa waxaa ku filan bijahannama ayaa ku filan saciiran meel hurto oo lagu gubtana jahannama ayaa ku filan halkan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka warramayaa waxyaabaha ku kalifaya ee inay nabiga rumayn waayaan oo diinta qaadan waayaan inay kamid tahay xasad iyo xaasidnimo oo Allah ka warramayaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nabi Muhammad siiyay ee ku irsaaqay ee nabinimada ah ayaa u diiday inay rumeeyaan am yaxsuduuna an-nas dadka miyay xaasidayaan iyagu waa dad laakiin dad gaar ah la sheegay oo waxa la sheegay Abdullah ibn Abbas wuxuu oran jiray nahnu an-nas duna an-nas annaga dad ah oo dadnimada dadka uga sokayna sababtoo ah wuxuu ugu tilmaamay am yaxsuduuna an-nas dadka miyay xaasidayaan marka dadka dadnimada leh la xaasidaya waa annaga leeyahay nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisii waxa kale leeyahay dadka miyay xaasidayaan yani carabta miyay xaasidayaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabinimada uu ka soo dhex saaray iyo nabi Muhammad uu ka dhex dhaliyay miyay ku xaasidayaan marka fadliga la sheegaya Allah subhanahu wa ta'ala siiyayna waa nabinimada iyo diinta iyo waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka soo saaray waxa kale oo noqonaya inay xaasidaan maalka iyo waxa Allah siiyay dumarkii xaasaskii Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay oo tafasiirta qaar kood waxay leeyihiin dumar nabiga kaleey salaatu wasalaam xaasaskii badnaa ay guursaday iyo ay ku xaasideen oo ay leeyihiin ninkani de dumar buu ka shaqeynaya hawlo kale ku jiraay shaqada uu soo faaruqo ka soo faaruqo shaqadaas rasaal leemiyay ku xaasidaya tafasiirtii way idan fadliga alla siiyay oo dhan miyay ku xaasidaya qaybta dambe aayada waa la leeyahay faqad aatayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa aataynahum mulkan azima ala ibrahim nabi ibrahim durriyadiisii oo iyaga laga soo saarayay nabiyadii ambiyada ay ka soo baxayeen oo muluk iyo boqorro ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo saaray ambiyo marka kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka soo saaray kutubta siiyay qaarna waa rumeeyeen qoladan banu israa'iil ahlu kitaabka kula joogta qaarna waa rumeeyeen abayaashood baa laga warramaya ee taariikhdoodii qaarna waa ku kufriyeen sida daraadeed waxay isku khilaafeen oo isku qabteen banu israa'iil ambiyadoodii nabinimadooda isku khilaafeen oo isku qabteen oo iyaga ka dhashay oo isku cid ahaayeen maxaad u malaynaysaa markaa nabinimadaada inay raacayaan oo isku waafaqayaan kuwii nabiyada ahaa ee dhexdooda laga soo saaray bay isku qabteen oo waxay u qaybsameen qaar rumeeyay iyo qaar dafiray bay u qaybsameen ka hor yimi marka mar haddii taaba ay isku khilaafeen adiga inay isku khilaafaan nabinimadaada oo aan laba cid ahayn carab ka dhashay waxa weeye waa min baabi awla weey ka sii mudanta ha u fadhiin marka inay ku wada caleema saaraan oo nabinimadaada ay wada qiraan ha u fadhiin weey maxamedow tafsiirkaas marka aynu marno tafsiir kala jira oranaya faminhum man aamana bihi damirka bihiya waxaan u celinay markii hore anbiyaa oo alkitab anbiyaa ala ibrahim nabiyadii ala ibrahim ee kutubta la siiyay qaar baa rumay qaar baa diiday tafsiir kale wuxuu leeyahay faminhum waxa kamid ah ahlu kitaabkii man qaar baa kamid ah aamana rumeeyay bihi nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo de waa abdullah ibn salaam iyo dadkii islaamay ee muuminiinta ah ee badnaa ومنهم waxa kamida man qaar baa kamida sadda ka joogsaday oo dadka ka celiyay anhu nabiga kaleey salaatu wasalaam kuwaasaana takdiibkooda iyo beenintooda iyo xaq fogaanshahooduna uu sii fogyahay sababtoo ah qofka hadaan waxba ka aqoon laakiin uu ka hor yimaado ku mucaarado wax badan kuma yeelayo ama waxa laga yaabaa mar uun inuu soo noqdo oo la iska heshiiyo laakiin qofka garanaya ee ku yaqaana waxa tahay garanay ujeedadaada yaqaan ku fahansan haduu ku dafirayo de si loo soo celiyo iyo si loola hadlo iyo si wax loogu sheego male marka iyaga culaad fog saasu Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa bi jahannam sa'ira tafsiirki saddexaad aynu sheegnay in am yaxsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli miya ku xaasidayaan nabiga dumarkii xaasaska alla siiyay iyadana marka aayad tafsiirkan آل إبراهيم لقى ورمو وحلليه نبي الله داود وقل دمر أبو لها سقالي سياشن دمر نبي الله سليمان وحولها بقل دمر وحاسسة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أرنا اسكو عيبية ما هو نبي حاسس بدن ليه هي عيب ما هي آل إبراهيم با ملك عظيم كايو قيسسك واوين الله سبحانه وتعالى واسيي وويل حياة ألا مركا وحكس وجبجبي وكفى بجهنم سعيرا جهنم أيا وفلا ما اللي وجبته وقواس ماشي اللي وجبيا وجهنموي إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا وقال الله سبحانه وتعالى كور رمي السجارة وقور رمي ذاتك أهل الكتاب كأها النبي قديدي عليه الصلاة والسلام حاسدي الدين تكهريمي إن السعيرة إيا نارتا عليهم لقوق بيو هذا نسيقود وقور رميا عد كسته وإلهي آياته سكورتمي أما أهل الكتاب كي هذا أما مشركين تي عربيت هذا أما هذا ضدك كدونا بها هذا فارسيين الرومان عدة دون طبعا النقدين عد كسته وإلهي آيات كسبيني سجود ماشي يقول يعني يقول تدينه ناريه عد كسته أو إلهي آيات كسر ما يسنا إنه تشنق ليا والله بدو قليل لك لصارين فمنهم من آمن به منهم من صد عنه عدي رميسين حقيتي عدي كهرت منا حقيبيتي الله سبحانه وتعالى كور ما يحلي إن الذين كوا كفروا قالوا بي بآياتنا آياتها يقول قالوا بي سوف مرضا بي أيان مسليهم جلين دونا نار بان جلين دونا مركا دوا قيامه يا آخر مركا لقاو نار تاس عقاب بدن بيكون مدنيان عقاب تدي بو الله كور ما يحلي كلما مركزتون نضجت أي بسلاطو جلودهم هرقهودو بدلناهم وحانو بدلنا جلودا هرقه غيرها تيهر عن هين ليذوقوا سي أي دميان العذاب عذابك هرقا هرقي قبتي هين أو عصب بالا صاريا ليذوقوا العذاب سي عذابك دميان هو عذاب شوكته إن الله ألا كان وحوى هذه عزيزا ألا غالبه أضق وعدة كورتي ماذا ألا كأرسنا يويه وأضق وغالب حكيما ألا حكمة بدن ووحو شرعيين حكم كيسا يوحو كرتب عقاب توابا ألا حكمة أي كل سنته يا رب سبحانه وتعالى هل كاس مركا آياتني حكور هنتي قالدي يمشي اللي جرينيو نصليهم نار بان جرينينا محيطة من جميع الجوانب مركا هذا نصليهم الإصلاح لنع والبنار كجهر ريسان ودنبجودي بهريري الله سبحانه وتعالى تاسون جرينيا عقابته لو عقابينا وحويان هرجهودو مركز تو أي بسلادان إن مد عصب لوكيني هالكاس مركا حرجة وماشى لقد درين كجمشود وكشرو وإعجاز علمي أو حقادين قفك مركا ضبكو وكل عقوبته هدي قيلنا يوم وحنوصنا يوم ضبكو ولي مجدبين هدول لكن قيلون ويو حلونا يا ضبكي سريع لقى قيلنا درين كبضان وتي وارد ما ضيو دي ضبكو هوس ونادع خطر بكوشرا مركا مر هدي على الذي إنه قيلنا درينكم مركا وضبك سريع جلوداس يا درينكم كوشرا الله سبحانه وتعالى يقول مركز درينكاس وبسلاده أو جلودا يا هرجاس بسلادان كوا كلام صارينا وأنا يجي أهين ومفسرين تقاربوا وحيس ويديين أو هدي هرك لا صاروا هرك جدا بابي معها مدن دبابي بالعقابية ساس ميا معنيه دو مايا وحد عكرتين هدي هرك اللي بدلوه إن هيلب كان اللي بدلوه روح لنا اللي بدلوه واحد عكر عد كلا بالعذاب يو كيدن بيجا قليب عن هين لكن معناه دو ساس معها جلودا غيرها تيهور يجبتي عن هين يعني يدي بالصوع عصبون يسينا يايو سيدي أي أجبتي سي عن هين لقد جاي حكى لي أنت هذي ذهب له تجي فرق الكن وحد يقدر يقطع فرق الكلاء مركز السجين مشيلة يا نوع كلا كده جاي مركز غيرها هو تيهور معها لكن واحد لقى اسمه وسلوحي هرجو دي بقى جبنا يا مركو معه ما هرك اللي بدله ليذوق العذاب سي عذاب رميان وددنكم انت بدن دي عربكم سارنان جري لكن هذا هرج الله صاري درeenka ka ugu xasaasisan waa dhadhanka ka ugu dareemayaal shanta waxa ugu xasaasisan dhadhanka saasa loo leeyahay liyadhuqul adab wadhuqul adab meel badan baa Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay inna Allah kana azizan hakima marka adabkaas baa Allah subhanahu wa ta'ala kaga waramay inay geliyaan
حديث بات المامسة قالك مرك العذاب إن هرج سنة لوينين ولقد جايو هرج سنة مصيرة يوم معلوم وحلا صعوه قربه سنة لقد جاي صدح معلوم وحلا كلا صعوه وكلا بيس قرب جوز كي سنة بورت أحد اللي أكاسين يوم سوء عذاب عقاب بدن وقدر يمو والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كوا آمنوا الرميي وعملوا الصالحات عمل دون وناكسن سميي وكوا كوي كسهر جدي قرانكو مثاني بوها الله لولبو iyagana meeshay gelayaan buu ka warramaya wuxuu leeyahay sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin beero tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda ay dareerayso al-anhaaru wabiyaal khaalidiina way ku waarayaan fiihaa jannada dhexdeeda abadan weligood lahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin aswaajun xaasas mutahharatun la nadiifiyey oo la taahiriyey وندخلهم وحانو جرينينا ظلا هاد كاسو ظليلا هدعه وقبو ايانو جرينينا ولي الله سبحانه وتعالى هل كان الله سبحانه وتعالى قلدك القوى الرمي وسعددها هاي الليباني هي حالده سيتا جنوين كاس بيروه دريريان وبيريه ملبكاها يكوي عانها يكوي بيها يكوي خمرها اي دريريان بانو جرينينا ولي الله سبحانه وتعالى مركاس يكون معيسانيان ونمعضا qofku had iyo goor wuxuu ka fikiraa ma nuqsaamaysa mise ma dhamaanaysa mas'aalo xulay ma nuqsaamayso waligood way ku waarayaan nimcooyinkii tamaamnimadeeda alla ka sii warramay wuxuu leeyahay waxay leeyihiin xaasas mutahhara la taahiriyay bilay markay jannooyinka galaan xaasas la taahiriyay waxa laga taahiriyay xaydkii iyo nifaaskii iyo dhibkii iyo akhlaaqdii xumayd iyo qayladii iyo wax kasta oo nuqsaan ah baa laga daahiriyay oo dumar شق له ترسنا يأو سقبس له وذا هذا اللي يبوق كدارنا معها أخلاق دوا نظيف لقن كدوا نظيف أبور كدي خلق كدوا نظيف إلهي سبحانه وتعالى وطاهري ونظيف يلا دمر كاس أي الله سبحانه وتعالى أدي عليه متأخرة وندخلهم ظلا ظليلا حرب بدن قد يحركوا مركو هرعي هاي قف سفي عمرو قلنا صنية وهذا قبوي هاي من جيد صار صارم وفربضان أيين حوي جيد كهرك وين له أي سوى عن بالله صنيا حديث وحكسو عروتي حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها جنة وحكويا لجيد هركي إذا قفك جديد كسارا وصعنيو بقول سنة وأن جين هركي إذا كده بحين كهركا واسعة أي الله سبحانه وتعالى وبلغ قادمين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول الله سبحانه وتعالى كصور رمي كتابك يصير قاب كدرن ورقمين وأي أمانة أجودن وعين وأي جورن وعين كتاب كذا وحي كقرنا يا رسول نمدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لو عمرين الرميان هؤلاء خاص ودن سيجوري مادين والله سبحانه وتعالى هل كان كشيء يا مؤمنينتي طريقة إن كدوا ونادان وأمانة أي إلاليان قال حلي إن الله ألا يأمركم وحيد الأمر يا أن تؤدوا إن تجدتان الأمانات أمانوينك إلى أهلها تذكري إن تجدان عدي إسكالهاي إهل كواهاي إن تكسر لمتان أمانة أجدتان وإذا قرتا حكمتم أضحكم إيسان بين الناس تذكر لحدودا وحو الله إذن أمر يا أن تحكموا إن حكمتان بالعدل عدالة إن حكمتان وصفي عن حقي وكلا صارتان إن الله ألا نعما أي نعمة ما وسكوت قامنتهي نعمة وحا نعمة لها هو ناكسنا هذي ما وحا يعيدكم إذن كوانينيو به سكا وحا ألا إذن كوانينيو وأمانة إن أهل كذا اللوجوتو حكم كان عدالة لغردقو أرنتاس ألا إذن كوانينيو أيان معبد ناطي ووحل يسكوانيو تاسع في عناطي إن الله ألا نعما أي نعمة ما وحا نعمة بدن في عن ما وحا يعيدكم إذن كوانينيو به سكا وحا ألا إذن كوانينيو أي وحل يسكوانيو وناكسن ونمع بدن إن الله ألا كان وحو هذا سميعا ألا مقل بدن بصيرا وأرق بدن سادراد حالدهن والله صعدا
ammaanadii ma khiyaamayseen ma gudateen xukunkii cadaalad ma ka dhigteen kamaydaan dhigin waa arkaa waa maqlaya alle subxaana wa tacaala waxay mutaysatana waa idinku abaalinaya weeyaan aayaddani waa asal weyn wey oo usuushii ka mida diinta oo alle subxana wa tacaala uu ku sheegayo ammaanooyinka in la ilaaliyo ammaanada cidda loo ilaalinayaana cid walba ammaanada waa loo ilaalinaya gaal iyo islaamba alle subxana wa tacala wuxuu leeyahay an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha oo cid gaara lama sheegin ammaanadaa ciddii lahayd baa loo gudbinaya ama gaal ha ahaato ama muslim ha ahaato ama ha ahaado qof aamina qofkaasi ama khaa'in isaga laftiisu ha ahaado xataa khaa'inka khiyaamayn maysid oo akhlaaqdiisa ku dhaqmi maysa adigu ee akhlaaqdaadaad ku dhaqmaysaa oo ada odhankani khaa'in buu ahaaye maanta waa inaan khiyaameeya sababtu maxay tahay khaa'inimadu waa akhlaaqdiisa laakiin adiga akhlaaqdaada ma aha waa inaad ammaano kula dhaqantaa xadiisna nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi addi lamaanata ilaa man i'tamanaka ammaanada u gudo ciddii ku aamintay walaa takhun man khaanaka ciddii ku khiyaamaysay ha khiyaamaynin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ammaanada markaas xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala oo la guto baa ammaanada ugu horaysa cibaadada salaada sekada soomka kafaaraadka nadarka wixii axkaama ilaahay kugu leeyahay cibaadaada inaad ka soo baxdaa waa ammaano weeye sidoo kale waxaa ammaano ah xuquuqdii addoomuhu ay isu dhiibanayeen iyo wadaa'icdii iyo waxyaabihii la isu dhiibanayey iyo xataa sirihii iyo wixii la isku aaminayey waxaasoo dhan baa meesha ku jira sidaa daraaddeed waxaa kaloo ka mid ah dowladnimadii iyo maamulkii ayaa ammaanad ah haddaad madax tahay wasiir tahay madaxweyne tahay xil hayso ammaanaad haysaa haddii aad manager tahay oo shirkad maamulo tahay ammaanaad haysaa haddii aad macallin tahay oo cid aad wax u dhigayso ammaanaad haysaa yacni waxaas oo dhan waa ammaano alwilaayaat oo dhan isku soo dar xataa waxa qoyskaaga iyo carruurtaada iyo maamulkoodu ammaano weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu eegayo sida aad u maamusho xoolaha iyo hantidu waa ammaano oo iyagana dee maalkii iyo wixii la kala duwayey qofku waa inuu ilaaliyo waxaa kaloo ammaana sirta haddii sir laguu dhiibo waa inaad ilaaliso aadan faafin ammaanaday ka mid tahay wixii alle ku amray ee sharci oo dhanna waa ammaano innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan waxaa ammaanadii cir iyo dhul baa diiday oo loo soo bandhigay insaan baa qaaday culays bay ammaanadu ay leedahay xadiisna waa ka nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ammaanada iyo riximku inay jid siraad labada dhinac ka taagan yihiin oo ay qabsanayaan ciddii ku xadgudubtay waxaa kaloo nabigu yihi xadiiska saxiixa latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha xataa latu'addanna alxuquuqu ilaa ahliha xataa yuqtasa lishaati aljammaa min alqarnaa xuquuqda waa la gudi doonaa oo ilaa loo qisaaso ridii seeyoonayd looga qisaaso tii geesaha lahayd hirdidii ay ku dhufatay yacni xaq baxsanayaa ma jiro ilaahay agtiisa haddaad adduunka gudan weydo oo ammaanada ilaalin weydo xuquuqda ilaalin weydo xagganaa laga jaraya xag alleh waxba kuma lumayaan weeyaan sabab nusuulka aayadda ay ku soo degtay waxaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay mufasiriintu sheegeen in ay ku soo degtay cuhmaan ibnu talxata ibni abi talxa oo waxay ahaayeen qoladii furaha kacbada hayn jirtay ayay ahaayeen marka reer bani cabdidaar kadibna markii nebigu uu yimi fatxu maka la furtay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam damcay kacbada inuu galo kacbada furaheediina iyaga haya ninkii markaa cuhmaan ibnu talxa furaha hayey baa wuxuu sameeyey intuu kacbadii xidhay oo qafilay ayuu sadxigay xagga sare iska fadhiistay jiifsaday kadibna furihii waa diiday inuu bixiyo oo nebiga siiye calayhi salaatu wasalaam nebiguna furihii keen buu leeyahay isna waa diidanya marka cali baa intuu gacanta maroojiyey ka soo qaaday furihii oo ka soo dhuftay oo u furay nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib nebigu kacbadii buu galay waa ku soo ducaystay waa ka soo baxay markuu soo baxay ayuu wuxuu yidhi haaka miftaaxuka ya cuhmaan cuhmaan oo furahaagii waa kan alyowma yowmu wafaa'in wabar maanta waa maalin oofin iyo baarinimo iska qaadidii iyo soxoogidii jaahilnimada waa la dhaafay marka waatana waa laguu soo celiyey marka saasuu ammaanadii u soo celiyey aayaddanina way soo degtay waxay ku soo degtay nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligaa uu miftaaxa iyo furaha kacbada hayey ina allaha ya'murukum an tu'adduu alamaanaati ilaa ahliha ammaanada inaad ehelkeedii u celisaan baa alla idin amraya
kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam furihii kacbada wuxuu ku celiyey cuthmaan ibn talxa si guud marka ammaanadii oo dhan in la ilaaliyo ay aayadaasi waajib inooga dhigaysaa qaybta labaad ee aayadda waa xukunka isaguna dhinaca kalena waa ammaano oo wilaayaadkii uu ka mid yahay dhinaca kalena waa wixii ay ku dhismisay jiritaanka iyo nidaamka koonku uu ku dhisnaa wey koonku cadaalad buu ku dhisan yahay alle wuxuu markaa wax xukumaysaan cadaalad wax ku xukuma marka waxay u baahan tahay intaadan waxba xukumin dee inaad cadaaladda taqaano haddaadan cadaaladdiiba aqoon dee cadaalad ku xukun lagu odhan kari maayo oo qof aan cadaaladda aqoon waxba cadaalad kuma xukumi karo waxay laasimsanaysaa marka in cadaaladda la barto oo sharciga iyo la barto diinta iyo waxa cadaaladda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey cadliguna waa sharciga ilaahay iyo axkaamta uu sharciyeeyey baa cadaalad ah oo cadaaladdu waxay ku jirtaa ilaahay axkaamtiisa isagaa garsoor ah oo cadaaliya oo dadka xuquuqdoodii u kala guray allah subxaanahu wa tacaala taas baa markaa layna amrayaa khaasatan markaas si guud baa xukaamtii dadkii wax xukumayey iyo umaradii madaxdii baa labadaba la faraya oo haddaad xukunkaagu uu garsoor yahay oo dad ishaya aad dhex fadhido oo aad xaakim tahay waxaa la rabaa inaad cadaaladda oogto oo cadaaladda ilaaliso sidoo kale haddii arrintaadu ay maamul tahay oo wilaayo tahay oo dadka wilaayadaada ku xukumaysa iyo wareegtooyinkaaga aad soo saarayso waa inay cadaalad ku soo baxdaa oo dadka cadaalad aad u samaysaa hadday qaybin tahay waa inaad cadaalad wax ugu qaybisaa waxaas oo dhan baa meesha soo gelaya ina allaha maca alxaakimi maa lam yajur faida jaara wakalahu ilaa nafsih xaakimka alle waa la jiraa oo waa u hiilinaya inta uu cadaaladda wax ku xukumayo markuu jawrka iyo dulmiga u leexdo garabkiisa alle subxana wa tacala waa ka baxaya aarna waxaa ku sugnaa hal maalin oo cadaalad la sameeyo waxay u dhigantaa 40 sano oo cibaado ah ana cadaaladdu miisaanka ay leedahay culayska ay leedahay in cadaalad la sameeyo idan cadaaladdiina waa in la barto may u baahan tahay weelkeedii la keeno iyo xukunkeedii ammaanaduna in la ilaaliyo bay u baahan tahay khaasatan culimadu waxay sheegaan fuqahadu waa in wixii ammaano ah booskii loogu talagalay lagu ilaaliya meesha isagoo kale lagu ilaaliyo waa in lagu ilaaliya haddii sanduuq lagu rido ama qasnad la geliyo oo aad adigu kartoon ku rido ama dukaanka meel ka saarto waa dayacday ammaanadii meesha tanoo kale la dhigo waa inaad dhigto xirsi mitligeed taasaa marka ammaanada ilaalinteediiya يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله سبحانه وتعالى مركور رمي أماندي هل كان يحكمك هل كان طاعة بكور رمي يا أيها الذين قوا آمنوا ألا الرمي وأطيعوا الله ألا أطيعا وأطيعوا الرسول رسولك أطيعا وأولي الأمر منكم وأولي الأمر كوا أمرك يتلضع صاحبك منكم إذن كإذن كم إذا المسلمين أطيعا فإن تنازعتم هتات كدودان في شيء أرين هتات كدودان وكمرانتان فردوه أعلي أرنك إلى الله ألا حق سوء عليا وكتابك سوء النقضة وإلى الرسول رسولك أعلي والرسول إلى الله حق الله والرسول رسولك سنة أعلي إن كنتم هداتهين تؤمنون كوا رمينيا بالله الله واليوم الآخر مالك ذنب ذلك أرهن كاسا خير بدن وأحسن وناكسن تأويلا حق عاقبة يعربتنا تاسا وناكسن ويتكيه لسانه ومركي حكامة الفري إني أطيعان حكامة الفري إني عدالة حكمان شعبكي الرعيدين وحال الفري إني أطيعان حاكمين مركا ساسي مركا سياسة بي نظامكي يدولة نمدي كل سنه إمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب كيس السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لبضع آيات أصل وليه كتاب كتنم لبضع آيات بكهلية وآيات ظهرنا وحي الله الله يسار راعي مسؤولكي أمانة إلالي عدالتنا كل حكم آيات الله وحي الله الله يسار شعبكي بالشدي وحي الله أطيعة ومقلع ووحل أطيعة يوامحي الله أطيعة ورسولك أطيعة ومدحضة أطيعة مركز أطيعدان حدي وحلا يسوق قبطنا حكم تجا إلهي كتاب كسر حكم تجا قضاء عدالة كل حكومة السوء هراء الله صافر إني عدالة وكل حكومان أيها فردية وعدالة دي كل حكومة أنت أسبق آيات دي مركز لبادي آيات
ay isu waafaqeen oo ay u kulmiyeen noloshii oo dhammaystiran halkaas ayay ku kulansan tahay wey